Asalaamu calaykum, kusoo dhawaada khiyaarta channelkeena Hikma Production. Insha allahu maanta qisadan waxaan idinkula wadaagayaa fadliga saliga nebiga uu leeyahay. Nin muslin ah ayaa markasta waxa uu ku salin jiray nebiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Allah wuxuu weydiisan jiray in uu siiyo quuto daruurigiisa maalintaas oo keliya ilaa uu ka helay wax dahabood. Inteenan bilaaban aan ku salino nebiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Nin kalluumaysta ah ayaa markasta uu salaad subaxda ka baxo waxa uu aadi jiray badda. Horeyna wuxuu sii qaadan jiray jallaabtiisa iyo in yar oo qoys ah. Waxa uu ahaa mid joogta ugu saliya nebiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, markuu jallaabtiisa tuuranayo. Maalin kasta Allah wuxuu ka irsaaqi jiray khasaa'inta badda. Allah khasaa'intiisu ma dhammaato weligeed. Waxa uu kordhay in uu nebiga jeclaado. Wuxuu noqday mid Allah tala saarta kuna saliya nebiga calayhi salaatu wasalaam. Maalin Jimco ah ayaa waxa uu aaday badda, wuxuuna tuurtay jallaabtiisii. Wuxuuna in yar ka bacdi jallaabtii ka dareemay inay jallaabtii dhaqdhaqaaqayso. Wuxuu u boobsiiyey xariggii jallaabta, wuxuuna ka soo saaray kalluun aad iyo aad u weyn. Farxad ayuu ishayn waayey. Nebiga ayuu ku saliyey, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, laakiin la yaabku tawbkiisu ma iman. Wuxuu aaday carruurtiisii iyo dhankaas iyo guriga, wuxuuna goostay in uunan iibin kalluunkan aadka u weyn. Wuxuuna naftiisa ku yiri, waa ninkii kalluumaysta ahaaye, waxaa kalluunkan ku waleemeysanaya qaarkeenba qaarka kale. Xaaskiisii ayuu kalluunkii u dhiibay. Xaaskii ayaa dhanka iyo bijada u dhaqaaqday si ay kalluunkan u hagaajiso. Xaaskii waxay ku bilowday kalluunkii in ay jeexdo. Markii kalluunkii ay jeexdo, wax yar kadib waxay ka soo saartay kalluunkii calooshiisa dahabkaasoo u laabanaya kumanaan sano ka hor. Kadib farxaddii xaaskiisu way ishayn weyday, korna way u dhawaaqday qaylo dheer. Waxaa soo orday qoyskii xaafadda joogay siday u ogaadaan qayladan waxa sababay. Waxayna kalluunka calooshiisii ka heshay dahab sida sanabka oo kale u eg. Ninkii kalluumaysta ahaa markuu arkay dahabkan u eg sida sanabka oo kale, farxad ayuu ishayn waayey. Ilaa habeenkii oo dhanna ma seexan. Wuxuu aaday aroortii suuqa dahabka suu u soo gado dahabkan. Waxaana loo soo bandhigay qiimo dhan oo lacageed $500,000 oo dollar. Waana qiimo aad iyo aad u fiican. Waa lacag kaafinaysa uuna ku iibsan karo guryo, baabuur. Allah waa Allaha qaniga faqiir ka dhiga, faqiirkana qani ka dhiga. Haddaba asxaabay, waxaad qisadan ka kororsateen oo faa'iido ah, description-ka commentiga nagula wadaaga. Like iyo share, subscribe-na waa noo muhiim. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.